تاريخها دنيا وقوت حنوياني تقتدي كل افتبا وحبا لقد تحراعي عرنتي مركا تاغن ولا لا تعالى تيمادد مركا مقنوا عينادو توغيسو awjeedkiyo tilmaamaha haddaan idinku saalayno tayantiyo tigsiga Puntland taabaqaad noqoyay tayantiyo tigsiga Puntland taabaqaad noqoyay tubta toosan iyo guusha waa loo tartamayaaye tallaabooyinkan qaadnayba سير كسر دواء قرنها بوسط وحنا هذا صمر مرة ماليه مشاريع كسعتي مشاريع ذا صادرتان وأفرت قيبود سوجرة رويجي ولا كورنية سلجي ولا كورنية هدينا هيدا كله وضعت السمية مقالة يسوحرتا يقرنك هانجركا ونسينا صوارقنا أفرت مشروع بقى كهير قلي halkaan taagana hina waa xeebtii oo meeshii loogu talagalay hoteelka cusub ee garoonku yeelan doono marka waxaan leeyahay ku soo dhawaada marka waxaan leeyahay garoonka Boosod aad baan ugu faraxsanahay inaad noo timaadaan wana dhiirigelinaysaa kulankiina iyo imaashihiina iyo kulli hadda waxaa cusub hoteelkan oo ah 5 star oo magaciisa Nova waa hotel caalamka oo dhan ka dhisan شركة waxaa la magacayo waxa la biyaak shirkada dhisay airport dhisaysa maal gashatay iyo airport maal gelinaysa marka shirkadu waa shirkada aad u weyn runtii biyaak waa ilaa 40 dawladood ay waxaa airport ku leeyihiin waxay maamulaan iyo waxay leeyihiin marka waxay ku tala galeen hotel aad u qubtaan runtii aad u qiimo badan oo mataqaana ugu qurux badan oo bidciisu aan Soomaaliya ka dhisnay waxaan bilaabaynaa hadda wadadii waa loo sameeyay waa ujeedaan wadadii laamiga ahayd soo galeysay dhismihiisa waxaan bilaabaynaa insha Allah bisha dambe shirkadda waxaa dhisaysa COCC oo dhistay airport ayaa dhisaysa maxaa hoteelka waa wax la diyaar qalabkii hadda suuqina mataqaana qalabkii hoteelka ama mashiinada lagu dhisi lahaa baan suuqina bisha soo socota aduu bartamaheeda shirkadda hadda aan joognaa waxa weeyaan waa meeshii hoteelkuna sida injineerku sheegay wuxuu yiri waa hotel caalami ah oo waxa weeyaan Soomaaliya ka dhisnayn marka dadka ilbaxnimada Soomaaliya u horeeyay bay nahay inaynu maartay hoteelkii ugu casrisanaayo Soomaaliya laga dhiso Boosaaso laga dhiso waxay noo tahay arrin weyn oo guul ah oo farxad ah taariikh ahaan waa noo kabaysaa marka aad iyo aad baan maartay madaxweynaha iyo shirkadda dhisaysa garoonka iyo tiimka waxa weeyaan muwaadiniinta ah oo ka shaqeynaya noocay doonaan uga shaqeynayna aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa shaqo lagu farxo oo guul ah oo horumar ah oo maartay si fiican u socota yaa garoonka ka socota waxaan rajaynaynaa in maartay dadka reer Boosaaso iyo dadka gobolka ku nool Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu tuso waxa wanaagsan ee gobolka ka socda airportka waad u jeedaan waa feeskii labaad baa dhamaanaya feeskii saddexaad baa la geli doonaa inta muhiimka ah waa la dhameeyay dekadii barnaamijkeedii waxa weeyaan iyadana tiimkii waa yimaadeen shaqadii hadda ugu horeysay baa la bilaabaya shaqadu waa socotaa madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Said Abdullahi Dani waxaan u mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol gobolkan waxa uu ka qabtay iyo shaqada socota iyo runtii amniga Boosaaso say ahaan jirtay oo la ogaa iyo maanta suu yahay in maanta amni iyo barwaaqo iyo maartay lagu nool yahay marka aad iyo aad baanu maartay tiimka maarayuhu madaxda u yahaana aan ugu mahadnaqaynaa runtii sharaf weyn ay noo ahayd inaan indhaheena ku aragno mashaariicdii aan wax badan maqlaynay meediyaha ka arkaynay iyadoo hadda gabagabo ay marayso qaybteedna hadeer la bilaabayo runtii sharaf weyn ay noo tahay dadkii ka shaqeeyay madaxweynuhu ugu horeeyo maaragtay ilaahay ka abaalmariyo runtii waa in loo mahad celiyay mudan yihiin mashaariic waaweyn oo horumar ah oo kaabaya horumarka dhaqaalaha iyo maaragtay bilicda magaalada baa runtii ka socda magaalada Boosaaso airportka uu mid ka mid yahay airportkii haddana mid caalami ah noqonaya oo runwaygiisii
diyaarad walba ay ku soo degi karto xadka ugu dambeeyay intii ugu dambeysay la gaarsiiyey hoteelkii oo hadeer ma aragtay xeebtii saaran oo noqon doona iyadana xaruntii shirarka iyo ma aragtay kulamada ama dadku transitka ay ku nasan lahaayeen dynamics badan iyo ma aragtay horumar badan bay magaalada ku soo kordhinaysaa airport ku soo kordhinaysaa runtii mashruucan specifically kan hoteelka waa mid aad loogu baahnaa waaye mid aad loogu baahnaa runtii macnaha oo hoteelka airport hotels leeyihiin hoteelada caalamiga marka airportada caalamiga tagtaa garanaysaa marka waa mid aad loogu baahnaa garashada iyo in la hindisay oo mashruucan lagu daray bilowgii horeba runtii waa wax la mahadiyo haddana mashruucii uu bilaabanayo mar dhow mucjizaad baa ka soo bixi doona halkan magaalada Boosaaso airportkii markuu dhammaado korontadii dhammaato biyihii dhammaadaan dekadii ay dhammaato mashaariicda markay soo idlaadaan waa wax weyn oo la mahadiyo